إن شاء الله هراي نسيس عندنا إنه هذا أنت هراي نسلفه إنه واحد دريميسا وحوي إن أنا فيديوز كان سودي جي إلا هدرتان أنكو ولا سميه statistical system أنكو ولا سميه statistical system typical floor كبس صح typical floor كبس قيبتان typical floor حينو دي من وامحي basement تيجي وحينو دي من last floor كي حينو دي من basement تيجي last floor كي طبعا هدي قاب كي أن مري أو كلته هذا دب أمرته واحد دريميسا وحوي إن شاء الله إن steps كي same هين أي ويرانا 60% أنا بكل سمي لأنه columns كاستعمال سوى same columns صح كلاميد أمبات سوق هذا نساعد أنا هراء استعمالي كليه واحد طورنا نساء سلابك سيستم كون نقنيه لما أنا وام حدا دي بالفيديوز كون نقطة عندريمي إن شاء الله إن تفهمي دون تسي إيزي أوكي مركب حربا إن أن نخصده إن شاء الله نختبر أنا قادم مركب دوني مركب إن إلا هذا أنيميشن قري برامج كان إلا هذا استعماله يمحوها وحوها أوتوكاد صح أوتوكاد بوهاو لكن ما أنتو حدوني إن أنواع محي أن أوجد ببرامج كلا تقول لي راد إي تابس اوكي يعني ugadbo barnaamij kale oo la yiraahdo e-tabs okay marka barnaamijkan AutoCAD ka dib ugu noqdo waa maxay muxuu ahaa wuxuu ahaa koo waa maxay drafting tool oo aan ka wada waa maxay barnaamij aan u isticmaalay inaan waa maxay wax ku sawirto bas waa maxay shaygan ku sawiranay wuxuu noqon karaa 2D ama wuxuu noqon karaa 3D okay shaygan ku sawiranay wuxuu noqon karaa 2D ama 3D awal waa maxay waxa awood badan u kulaha 2D laakiin hadda tan waxa dareemaysaa 3D giisana inuu waa maxay 3D lagu sawirto AutoCAD ka gudihiisa okay marka waa maxay waa drafting tool aan wax ku sawiranaya bas shaqo inta ka badan aan waa maxay aan u isticmaalay ma jirto ay okay sidoo kale waxa aad dareemaysaa waa maxay in AutoCAD ka waa maxay dhammaan formats uu lahaa fileshiisa ay lahaayeen format DWG ah dhammaan format waxay lahaayeen ay DWG ah wadan dibsa ugu noqdo مثلا folder saan kala hadaan u soo furto aan qaybta waa maxay statistical system ka aanu galno aynu sameeysanay halkan waxaad arkaysaa statistical system ka aanu kula sameeyay inuu saa kugu yaalo okay marka waxaad arkaysaa formatka ugu dambeeya waa maxay gadaal meesha dambe muxuu ka wataa waa maxay DWG kan waa maxay waa DWG TWG waxa dareemaysaa waa maxay anigu waxaan kula sameeyay typicalka laakiin adiga waxa laga rabaa last roofka iyo waxa laga rabaa bedroomka ama waa maxay basementiga inaad adigu aad sameeyso insha Allah okay marka haddaan dibsa ugu noqdo sorry haddaan dibsa ugu noqdo mashruucaygi waxa dareemaysaa halkan haddii aan hoos uga soo degto inaan waxa rabaa mention gareeyo hal point halka point aan mention gareynaya waxa weeye in horta shirkaddan waxa la yahay barnaamijkan AutoCAD inay soo saartay shirkad la yiraahdo Autodesk inay soo saartay shirkad la yiraahdo Autodesk maxaan u mention gareeyay shirkadda soo saartay barnaamijkan insha Allah within a minute ayaad ku ogaanaysa sababta aan u mention gareeyay haddaan dhakan kale aan u gudbo e-tabsiga koo horta waa maxay waa qaab waa maxay isagana drafting tool baan u isticmaali karaa drafting tool ayaan u isticmaali karaa maxaan ka wadaa waa maxay asaga gudihiisa laftigiisa waa maxay waa ku design gareysan karaa ama waa maxay statistical system waa ku sameeysan karaa aan mashruucayga ah laakiinse waxaan ka doorbiday waa maxay anigu inaan AutoCAD ka isticmaalo sababa jira awgood insha Allah waxaan isku dayaa inaan pointigan aan waa maxay si fiican u taabto videoga dhamaadkiisa videoga markuu dhamaado insha Allah muhiimadda aan ka leeyahay aan ka gaaro insha Allah pointigan dib aan ugu soo noqonayaa sababta aan uga doorbiday in AutoCAD ka u isticmaalo insha Allah hadaa gadaal ka daawato wad arki doontaan sidoo kale AutoCAD ka waxaan waxa la e-tabsiga waxaan u isticmaali doonaa inaan ku sameeyo wax la yiraahdo structural analysis inaan waa maxay aan buildingkeegi ama waa maxay mashruucaygi aan structural analysis dhamaystiran aan waa maxay u adeegsado inaan ku sameeyo anigoo isticmaalaya barnaamijkan e-tabs okay marka haddii aan waa maxay hal mid ayadana mention gareeyo shirkaddan e-tabs waxa la barnaamijkan e-tabs waxa soo saartay shirkad la yiraahdo CSI shirkad la yiraahdo CSI waxa dareemaysaa waa maxay inaan halkan ka hadlayo laba shirkadood oo kala duwan inaan halkan ka hadlayo waa maxay shirkad la yiraahdo Autodesk iyo shirkad la yiraahdo waa maxay CSI laba shirkadood oo kala duwan in halka ay ugu yaalaan marka aniga waa maxay projectiga hadda dib u xasuusato muxuu ahaa projectiga magacaan u bixiyay hadda u xasuusato dib waxa uu ahaa waa maxay project 2 sax project 2 ah sax marka project 2 marka hore waxa aan waa maxay statistical system aan ku soo sameystay anoo isticmaalaya AutoCAD haddana waxaan doonayaa inaan u gudbo e-tabs inaan u gudbo okay waxa dareemayaa waa maxay labaduna inay yihiin laba shirkadood oo kala duwan waa maxay inay yihiin ay laba shirkadood oo kala duwan inaan waa maxay asaas aan rabo inaan waa maxay aan mashruuciga u kala gudbiyo aan transfer ugu kala sameeyaan marka waa in ay jirtaa shay u dhaxeeya labadaas oo file soo waxa garatay maaha oo fahmi kara AutoCAD ka sidoo kale tan fahmi kara e-tabsiga okay marka halkan waxa imaanaya fikirka ah in aan sameeyo file la yiraahdo DXF
inaan sameeyo file la yiraahdo dxf muxuu iga saacidayaa filekan dxf ka wax kale iga saacidayo wuxuu iga saacidayaa waa maxay in aan waxa weeye formatkii hore aan samaystay oo ahaa waa maxay dwg inaan u bedelo waa maxay format kale oo la yiraahdo dxf inaan u bedelo format kale oo la yiraahdo dxf oo waxa dareemaysaa waa maxay dwg marka aan waa maxay statistical systemka aan samaystay in aan la sheekeysanay ama aan waa maxay aan ku ciyaarayay in aan sameeyo rcc sections sax inaan sameeyay rcc sections maxaan ka wadaa waa maxay in mesela pmkayga saan kale marka uu yahay soo waxa garatay ma pmkayga markuu saan kale uu yahay halkan uu mesela yaalo column saan kale halkan uu yaalo column saan kale waxaad arkaysaa adigu waa maxay waxaad arkaysaa waa maxay thicknesska beamka soo waxa garatay ma oo mesela waxaan iri inaan isticmaalayo marna b2 alif marna inaan isticmaalayo b25 waa maxay marna inaan isticmaalayo pm thicknesskiisu uu yahay 12 cm thicknesskiisa halkan hadaan saa kugu waa maxay kugu calaamadiyo thicknesskiisaan uu yahay 12 cm marna uu yahay 25 cm yani waxaad arkaysaa waa maxay thicknesska beamka soo waxa garatay ma sidoo kale waxaad arkaysaa waa maxay column-kaaga in waa maxay dhammaan dimensionkiisa uu haysto laakiin marka aan dxf aan sameeyo laano barnaamijkan u socdo waa maxay waa etabs sax barnaamijkan u socdo waa etabs waa maxay muxuu sameynayaa baan iri aan haddaan korsa u fiirso waa maxay waxa uu sameynayaa waa maxay structural analysis okay yani waa maxay systemkayga rc-ga waa inaan u bedela qaab structure ah waa inaan u bedelaan qaab u bedelaan structure ah macnaheedu maxaan ka wadaa yani beamkii aan marka hore thicknesskiisa aan arkaya waa maxay la inaan waa maxay qaab structure caadi ah aan u bedelaan waa maxay line inaan u bedelo waxa garatay ma kadibna loadkii aan waa maxay aan saa u dul saarto aan waa maxay aan hadii aan doonayo insha Allah in aan analyze ku sameeyo aan si fudud aan analyze ku sameyn karo marka pointigaas waa inaad point muhiim ah fahanted weeye qaybta hore marka hore aan statistical systemka aan sameeyay maxaan la hadlayay baan iri waxa aan la hadlayay Allahu musta'an RC section waxaan la hadlayay RC section waa maxay sectionkii oo dhameystiran thicknesskiisii aan arkayay aan soo waxa garatay markii aan waa maxay raba inaan hadirtaan structural analysis aan sameeyo design kuma oranaya structural analysis baan kuma oran structural design okay laano structural design waa mowduuc kale oo muhiim ah inaad asagana aad fahanto insha Allah waan isku dayay inaad waa maxay daqiiqadaha soo socda inaad fahmi doontaa marka laba shay baa jira laba eray oo halkan waxa jira laba terminology inaad isku khasabta isku khalada aysan ahayn okay waxa jira marka ugu horeysa waxaan ku hormarayaa waa maxay marka hore waxaan ku hormarayaa analysis inaan sameeyo okay kadibna waa maxay waxaan sameynayaa waa maxay design okay marka analysis kuna waa maxay waa mowduuc muhiim ah oo waa maxay isagana inaad focus ka saarto ay design kuna waa maxay waa mowduuc ka duwan kii hore okay marna waxaan ku leeyahay waa maxay structural analysis marna waxaan ku leeyahay structural design okay markasta oo inaad aad niyada ku haysaa waa maxay farqiga in u dhaxeeyo inaad dareento labadatan okay marka hadda maxaan doonayaa anigu aan structure analysis baan sameynayaa structural analysis okay baan sameynaya maxaan ka wadaa waa maxay beamkiisaan kale igu yaal halkan hadii aan mesela aan rabo inaan momentigiisa soo saaro inaan momentigiisa soo saaro saan kale to soo xagarta inaan momentigiisa aan soo saaro saan kale to sidoo kale hadii aan doonayo inaan shearkii soo saaro beamkan inaan shearkii beamka asaas kale taan soo saaro asagana wl tarbiya ala 2 saas kale ama soo xagarta ma qiimihiisa saas kale aan u soo saaro aan okay aan momentigiisa soo saaro aan shearkina soo saaro haduu mesela torsion u meeshan halka beamkan ii yaala torsion haduu u lahayo kale waa maxay asagana inaan torsionkii aan si fudud aan waa maxay aan u soo saari karo aan okay marka qaabkan oo dhan stepkan oo dhan aan mar hadirtan maxaan sameeyay aan inaan waa maxay stresseskan la soo baxo waxaan sameeyay aan analysis ayaan sameeyaan صح analysis baan sameeyaan marka inaan stresseskan ama momentiyadan ama qiimayaashan stresseska intaan qaato in aan waa maxay aan u bedelo rebar yani inaan stresseskayga intaan qaato soo waxa qiimayaasha stresska momentiga qiimihiisa inaan qaato shearka qiimihiisa inaan qaato torsionka qiimihiisa inaan qaato mesela aan u bedelo waa maxay qaab Allahumma qaybtan hoosaadaan saa inoogu dhigo mesela si waa maxay waadax u noqoto adigan u fahanto okay inaan waa maxay hadii aan saan kale aan sameeyo oo sadan sa ugu soo degto hadii aan qiimahayga waa maxay qiimayaashayda waa maxay stresseskayga intaan qaato aan u bedelo qaab rebarisa soo waxa garatay aan la soo baxo numberkii rebarka aan la soo baxo waa maxay dimensionkii rebarka ama waa maxay diameterkii rebarka soo waxa garatay aan la soo baxo typekii park aan isticmaalayay soo waxa garatay markaan maxaan sameeyay waa maxay in aan ka imi stresses soo waxa garatay aan analyze ka imi kadibna aan ku sameeyay design soo waxa garatay si aan ula soo baxo documentiyada tan
si aan ula soo baxo documentiyada tan waa maxay inaan la soo baxo numberkii inta bir aan isticmaalay inaan la soo baxo diameterkii birta aan isticmaalay inaan la soo baxo birta aan isticmaalay ma high tensile strength ba mise waa maxay bir caadi ah waa maxay mild steel labada bil waa maxay ma high strength ba mise waa maxay waa mild inaan waa maxay labada mowduuc iyadana waa maxay aan fahanno insha Allah videos ka soo socda ayaad arki doontaa markaanu design ka sameynayno ama marka aynu sameynayno analyze ka okay marka qaabkan oo kale waa maxaan sameeyay marka hadeertaana hadda waxaan sameeyay design baan sameeyaan okay marka hore maxaan sameeyay aan momenteeda inaan la soo baxo iyo waa maxay shirka iyo analyze baan sameeyay hadda laakiin maxaan sameeyay aan design baan sameeyaan waa maxay laano خلاص stresskeyga waxaan u bedelay waa maxay qaab bir ah baan u bedelay waxaan kula soo baxay waa maxay birti aan isticmaalayo oo section ka galay okay marka qaab noocan oo kale ah maxaan sameeyay aan qaab RC section kii baan waxaan u bedelay waa maxay structural qaab structure ah soo xagaratay ma si waa maxay barnaamijka uu e-tabsiga u fahmo si uu barnaamijka e-tabsiga u fahmo laana barnaamijka e-tabsiga maxaan dhahnay aanu min 1 iyo 2 inuu sameeyay waa maxay wax la yiraahdo structural analysis okay marka pointkaas waa point aad iyo aad muhiim ah ay muhiimna ahayd inaan waa maxay waadixiyo insha Allah videos gaar insha Allah aan waa maxay pointkaas deeply aan u sii galayna ay waa maxay design waa maxay analysis aan u kala sameeyo maxay ku kala duwan yihiin mid kasta hadafka aan ka leeyahay insha Allah waxaan isku day video kooban oo gaarkiisa in aan sameeyo okay marka pointkaas halkaas ayaan waa maxay aan uga tagayaan marka hadda waxaan isla fahanay waa maxay hadda waxaan isla fahanay ilaa hadda waa maxay koow waxaan isla fahanay koow ilaa hadda waxaan isla fahanay number 2 in aan RCC section kii aan u bedelo soo xagaratay ma qaab structure ah soo xaga soo barnaamijka e-tabs uu u fahmo okay qaabkaasna waa maxay iga saacidaya in aan sameysto barnaamij file la yiraahdo DXF file la yiraahdo DXF in aan sameysto okay marka waxaan rabaa aan file kan DXF ka inaan sameeyo shuruudo ayuu leeyahay file kan DXF ka inaan sameeyo shuruudo ayuu leeyahay okay marka ugu horeysa waxa imaanaya aan barnaamijkeygii AutoCAD ka ayaan imaanaya aan waxa soo furanaya waa maxay statistical system-ki aan sameystay aan samaystay ayaan saa soo furanaya file-kii statistical system-ka ayaan furanayaan okay marka statistical system-ka gudaheeda waxaan ku arkayaa waa maxay meeshii column ahayd in aan ku sawiray rectangle sax inaan meeshii column ahayd yani saan oo kaleeto haddaan mid kasta aan color inoogu sameeyo matalan columns baan haystay waxaan haystay beams waxaan haystay slab soo xagaratay maaha maxaan kaloo haystay waxaan haystay opening maxaan kaloo haystay aan يعني almost intaas un baan haystay aan okay marka hadii aad dib sa ugu noqoto waxaad arkaysaa waa maxay isla columns inay igu sawirnaayeen ay rectangle صح beams inay igu sawirnaayeen rectangle slabs inay igu sawirnaayeen polyline صح opening inuu مثلا igu sawirnaa rectangle ya waxaad arkaysaa waa maxay beam markaan ku leeyahay rectangle igu sawirnaa yani waxaad arkaysaa beamkii inuu khalaas aan arkayo waa maxay sectionkiisa oo dhameystiran waa maxay thicknesskiisi ama 12 cm ha ahaado ama 25 cm ha ahaado inaad waa maxay thicknesskiisi oo dhameystiran hadda halkan column haduu ku yaalo halkan haduu column ku yaalo dhammaan thicknesskiisi inaad arki karto ayaad arkaysaa صح waa maxay muxuu igu sawirnaa laana rectangle waa maxay waa shay saan oo kaleeto waa maxay afar gees صح marka maxaan doonayaa anigu maxaan doonayaa hadda inaan bedelo waxaan doonayaa in aan u bedelo qaab structural yani inaan u bedelo waa maxay inaan barnaamijka e-tabs aan imaado aan u bedelo waa maxay qaab structure inaan u bedelo صح marka waxaan sameeynayaa transfer kale tan sameeynaa maxay column-kayga rectangle ba u deynaya صح awal muxuu igu sawirnaa rectangle ba igu sawirnaa la hadeertaana waa maxay rectangle ba u deysanayaan isaga waxba ka bedelimayaan laakiin beam-kaygi awal muxuu igu sawirnaa rectangle ba igu sawirnaa la hadda waxaan ku sawirayaa line baan ku sawirayaa okay slab-kaygi polyline buu ahaa isaga polyline-kiisa aan u deynayaan maxaan u deynayaan polyline-kiisa ayaan u deynayaan okay kana waa maxay rectangle-kiisa aan u deynayaan maxaa isbedelay marka waxa isbedelay waa maxay aad arkaysaa waa maxay in aan bas aan bedelay beamski aan waa maxay xajmigi ama waa maxay dimensionkiisi aan marka hore arkayay sectionka aan u bedelay waa maxay line bas okay inaan u bedelay line bas okay marka haddaan hoos ugu soo degto waxaan sameysanayaa waxaan imaanayaa barnaamijkayga AutoCAD-ka saan oo kaleeto
waxaan diyaarsanayaa aan si ma shaqadeedu ay shaqo unique u noqoto shaqo ma maxay nidaamsan markasta waxaan ka dadaalayna waa maxay shaqo kasta aynu qabanayno inaynu shaqo nidaamsan ay noqoto si hodhatu waa maxay step kasta aynu marayno ama design ha noqoto ama waa maxay analyze ha noqoto ay inoogu fududaato barnaamijyada waa maxay aynu transfer ku kala sameynayno waa maxay si fudud aynu transfer ugu sameysanaano okay marka waxaan sameysanayaa AutoCAD gudihiisa waxaan ku sameysanayaa layers cusub baan ku sameysanayaa layerska maxaan u kala bixinayaa layerskaas maxaan u kala bixinayaa mid kasta waxaan ka hormarinayaa layerkaas مثلا ET waxaan ka hormarinayaa ET aan usoo gaabiyo ETABS waxaan leeyahay marka ET column okay waxaan sameysanayaa ET beam B2 alif مثلا ama waxaan ka wada B2 alif marka aan leeyahay waxa waa beam thickness kiisu yahay 12 okay waxaan sameysanayaa waa maxay ET okay B25 waxaan ka wada waa maxay waa maxay waa maxay ETABS baan rabaa inaan u gudbiyo sidoo kale tan waa maxay B-dan waxay u taagan tahay waa maxay in aan haysto beam thickness kiisuna uu yahay 25 okay B2 to B25 okay waxaan sameysanayaa waa maxay ET مثلا opening meelaha waa maxay opening ka inaan waa maxay ku sameeyay saas oo kale waxaan sameysanayaa ET مثلا solid slab SS baan soo kaabsanayaan 14 SS14 waa maxay thickness kiisa uu yahay 14 si aan u garto hodhowti markii aan waa maxay aan modeling ka sameeynaya insha Allah okay waxaan sameysanayaa waa maxay ET saano kaleeto FS مثلا 16 oo ka wada waa maxay مثلا flat slab thickness kiisu yahay 16 ama uu yahay مثلا 20 badhe uu yahay thickness kiisu 20 cm okay saas oo kale ayaan u sameysanayaa waxa kale oo sameysan karaan waxa sameysan karaa waa maxay ET مثلا live load waxaan ugu talagalay live load ka maxaan ugu talagalay arki doonaa cabarka dib aad arki doontaa insha Allah live load ka ama layer ka LL aan usoo gaabiyay sababta aan u sameystay okay marka waxaan diyaarsanayaa baan dhammaan layers kan aan diyaarsanayaa waxaan ku diyaarsanayaa waa maxay AutoCAD ka gudihiisa okay marka maxaan sameynayaa columns-kii oo kaleeto xagee baan gelinayaa layer-ka waa maxay waxaan gelinayaa column-ka mesela haddii aan haysto beam thickness kiisu 12 yahay xagee baan gelinayaa layerka waxaan gelinayaa B2 alif ka haddii aan mesela haysto B25 waa maxay beam thickness kiisu yahay 25 soo xagaratay ma waxaan gelinayaa layerka saas oo kaleeto opening oo kaleeto sidoo kaleeto opening kan gelinayaa haddii mesela slab-ka waa maxay aan isticmaalay solid slab thickness kiisu yahay 14 waxa dareemaysaa aan thickness inaan haddeertaan halkan assumption ku sameeyaan thickness inaan halkan assumption ku sameeyay laakiin qaab lagu soo saaraa jirta thickness ka sax laano مثلا haddii aan solid slabs hadaan isticmaalayo aan soo xagaratay ma code ku kala duwan yihiin laakiin code kan isticmaalayo aan u badana waxay u badan tahay laba code ama British code ama Egyptian code okay marka solid slab oo kaleeto hadaan doonay inaan thickness kan aan hadda aan halkan sheegay waa maxay 14 ka inaan waa maxay la subax maxaan sameeynayaa waxa sameeynaysaa waa maxay in aad length waa maxay L shortigaaga ama waa maxay length kaaga meesha u yar yahay inaad u qeybiso 30 yani maxaan ka wadaa waa maxay mesela haddii aan file saan oo kaleeto usoo furo qaybtaan oo kaleeto muxuu yahaa solid slab iyo soo xagaratay ma dhankana dherer bay u tahay dhankana waa maxay dherer kale u tahay inaan labada dherer aan xisaabsado dhererka aan xisaabsado oo kaleeto waxaad arkaysaa waa maxay 4 mitir iyo waa imisa iyo 4 mitir almost sax waa 4 mitir almost dhanka kale tan haddii aan saa u taabto waxaad arkaysaa waa maxay inuu yahay 3 mitir iyo 70 iyo 2 yani 3 mitir iyo 75 iska dheh soo xagaratay ma marka haddii aan rabo inaan waa maxay thickness ka aan la soo baxo thickness ka slab kan halkan ii yaal ama aan shubayo thickness ka haddii aan rabo inaan la soo baxo maxaan dhahayaa waa maxay 3 mitir iyo 75 waxaad iigu qaybisaa 30 si aan waa maxay qiimo fudud waa maxay kadibna waxaan la soo baxayaa waa maxay thickness ka slab-kaygaas inta uu noqonayo sorry delete waxaan la soo baxayaa waa maxay thickness ka slab-kayga inta uu yahay okay marka qaacido fudud weeysan kale haddii mesela flat slab aad haysato flat slab oo kale aad haysato waxa dareemaysaa waa maxay iyadana maxaa lagu la soo baxaa waxa lagu la soo baxaa L long ama waxaan ka hadlayaa waa maxay qaybta labada column soo waxa garatay ma ee ugu kala fog slab-kaaga ayaad xisaabsanaysaa waxaan u qaybinaysaa qiimaha la yiraahdo 32 qiimaha 30 code ka qoraysan hadii aan yani jeebkayga kala ma iimaanaan xagee baan ka keenay aan waa maxay qiimaha kan waxa qoray waa maxay code
code kan ka keen laana aan markasta marjacayga ama meeshaan u noqonayo waa maxay reference-gayga waa maxay waa code ka okay marka code ka wuxuu ii sheegay waa maxay flat slab hadda haysatid aywa laba column oo kaleeto soo waxa garatan column ba haysataa column kaleetana midna halkaan kale ku yaalo inaad xisaabsato length-ka u dhaxeeya labada column ee kuugu kala fog soo waxa garatay ma kadibna aad length-ka inta soo qaadato aad u qaybiso qiimo la yiraahdo 32 yani maxaan ka wadaa si hadii aan dhamkaan saan kale idin tuso مثلا qaybtan oo kale waa maxay inaan haysto qaybtan saro dhan waa maxay flat slab yahay soo xagartay inta labadan column baa waa maxay labada ama column kan wuxuu yahay labada column ugu kala dheer waa maxay allah musta'an slabkiga marka inaan line saan oo kale u sawirto مثلا soo xagartay ma ii cadeynaya waa maxay isu ka xiraya waa maxay labada column ay isu kala fog waa maxay mashruuciga kadibna aan waa maxay distance-giisa soo saaray hadarka labada column inay isu jiraan ay 8 mitir 9 mitir iska 9 mitir inay isu jiraan marka maxaan leeyahay aan halkan waxaan leeyahay 9 mitir waxaan leeyahay 9 mitir loo qaybiyo waa maxay 32 qiimaha waa maxay waxaad helaysaa marka thickness-ka waxaad helaysaa aad slab-kaaga soo xagarata ma taana muxuu ahaa flat slab qaybtana waa maxay qiimaha kana waa maxay solid slab-ka markasta waa maxay qaabkan qiimayaashan waxaan ku yiri waxaan ka keenayaa waa maxay code-kan ka keenayaa waxaan anu jeebka aan kala soo baxay ma okay marka pointigaas inaad fahanto waa muhiim marka haddeertaan marka aniga waxaan sameeyo maxay assumption caadi aan samaystaan marka aan design ka sameeynaya ama analyze ka aan sameeynaya assumptions kan oo kaleeto range-ga waxaan ku ciyaarayaa waa maxay aysan ka badnaan karin waxaad dareemaysaa waa maxay solid slab-ka hadii aan saan oo kaleeto u timaado solid slab-ka inaan isticmaalayo waa maxay one mesh هل مش أو محي بير أن استعماله يعني محن كود هل مش بير يعني بير سانو كليتا وهل مش أو محي حجيبة تلا bottomka inay taalo soo xagartay ma marka hal mesh oo isticmaalayo maxaan ka wadaa marka shuruud bay leedahay inaad hal mesh waa maxay solid slab aad isticmaashaa waa in waa maxay thickness kaagu ama TS taadu thickness of slab kaagu waa in uu waa maxay ka yar yahay 16 cm okay hadii thickness kaagu uu ka yar yahay 16 cm hal mesh baad isticmaalaysaa laakiin haduu thickness kaagu ama waa maxay slab kaaga uu ka bato waa maxay 16 cm haduu ka bato 16 cm la laba mesh bay noqonayaan halka mesh waa maxay laba mesh baad isticmaalaysaa yani mesh waa maxay bottom iyo mesh waxaad isticmaalaysaa top qaybta sare aad u isticmaalaysaa okay marka pointigaasna waa point muhiim ah insha Allah hadii code-ka aad wax badan aad akhriso aad ama British code ahaada ama code-ka aad u isticmaalayso markasta waxaad dareemaysaa waa maxay waxyaalahan kale ama details-kan basiidka ah inaad waa maxay isin ka hoostusin la doonay inaad markasta aad concentration kaaga buuxa aad siiso okay marka tanna waa shuruudo kamid uu leeyahay flat slab-ka laakiin solid waxa la solid slab-ka laakiin flat slab-ku markasta waa maxay isaga wuxuu leeyahay laba mesh buu leeyahay bottom iyo top laba mesh ayaan markasta aan sameeysanay marka qiimayaal aan waa maxay aan ku ciyaaraya jirto mesela waxaan ogaaday waa maxay solid slab baan rabaa inaan isticmaalo solid slab markaan rabaa inaan isticmaalo markii maxaa niyadda ku soo dhacay inaan hal mesh oo waa maxay oo bir inaan rabaa inaan isticmaalo okay marka maxaan sameeynaya markasta TS teeda ama thickness of slab-kayga waxaan ku ciyaaraya qiimo ka yar 16 cm yani maxaan isticmaali karaa 14 cm 16 cm 12 cm soo xagartay 10 cm soo xagartay ma sagaal iyo waxba hoos galin okay qiimaha ugu wanaagsan waa maxay 10 iyo wixii ka sareeyo kana hooseeyo waa maxay 16 cm inta aan range noocaan ku ciyaarayo waa maxay waxaan ahay safe oo waa maxay waxaan isticmaalayaa waa maxay hal mesh oo xadiida ama hal mesh oo rebar xadiid markaan ku leeyahay waa rebar okay rebar iskaan isticmaalay birtaan isticmaalay okay marka hal mesh waa maxay bir ayaan saa u isticmaalayaan okay marka waxaan rabaa aan inaan dibsa ugu noqdo waxaan ku yiri layers ayaan ku sameysanayaa aan AutoCAD-kayga aan ku diyaarsanaya qaab noocan oo kale ah mid kastana waa maxay waxaan gelinayaa layerka loogu talagalay soo xagaratay ma kadib waxa aan tirtirayaa waa maxay dhammaan waxa aan delete ku sameynayaa aan marka step-ka aan gaaro markaan step-kaas aan gaaro waxaan delete ku sameynayaa aan delete ayaan ku sameynayaa dhammaan statistical system-ka aan sameystay waxaan la soo harayaa waa maxay file-kayga DXF-ka bas okay waxaan la soo harayaa file-kayga DXF-ka okay bas si aan waa maxay aan transfer si fudud aan ugu sameeyo e-tabsiga okay marka intaas hadda ila soo fahantay intaan hadda ila soo fahantay waxaan rabaa aan qaybtan hoose in aan ku sharaxo hal point oo marka hore aan dib u dhigtay aan hadda dib u xasuusatay halka point muxuu ahaa hadii aan marka aan pointigaas aan waxaan ku yiri aan waxa jirta shirkad la yiraahdo CSI shirkadda tan barnaamijyo badan bay soo saartay waxa kamid ah barnaamijka soo saartay e-tabs waxa jira barnaamij la yiraahdo safe ay soo saartay waxa jira barnaamij la yiraahdo SAP 2000 waxay jira barnaamij la yiraahdo ay soo saartay CSI column
dhammaan barnaamijyadan dhan yaa soo saaray waxaa soo saaray shirkadan la yiraahdo CSI shirkadan la yiraahdo CSI ayaa dhammaan barnaamijyadan soo saartay sax okay dhammaan barnaamijyadan waxay kulansadaan haddaan dib aan u xasuusano waxa ay kulansadaan laba shaqo muhiim ay kulansadaan waa maxay drafting aan u isticmaali karo oo waa maxay statistical system-kayga aan marka ugu horeysa ayada aan ku sawiran karo sidoo kale tan inay ii sameeyaan ay structural analysis inay ii sameeyaan sax labada shaqo ayay kulansadeen ay soo xagaratay marka su'aashi aan dib u dhigtay waxay ahayd waa maxay engineer okay waxaad ii sheegtay waa maxay in aan tabsiga ama waa maxay dhammaan barnaamijyadan CSI ay samayso dhan in aan u isticmaali karo qaab drafting in aan waa maxay sketchkayga marka ugu horeysa aan ama statistical system-kayga aan ku sawiran karo sababaad waa maxay uga doorbiday barnaamijkan aad u isticmaashay AutoCAD-ka sababaad u isticmaashaa طيب waxaan rabaa marka pointigan in aan wax yar aan idin fahansiiyo qaabka barnaamijkan eTabsiga soo shaqeeyo okay barnaamijkan eTabsiga badanaa wuxuu isticmaalaa waa maxay axis okay axis buu isticmaalaa yani badanaa waxa uu mashruuciisa ama mashaariicda waa maxay inaan ku dhisto ay waa maxay ku wanaagsan waa maxay mashaariic saan oo kale taa yani mashaariic waa maxay distance-ga ama waa maxay distance-ga u dhaxeeya waa maxay qiimayaal isku mid ah u yahay yani waa maxay distance-gan soo xagaratay ma dhammaan waa maxay qiimayaal isku mid ah yani column halkan haduu yaalo مثلا column haduu halkan yaalo halkan column kale yaalo halkan column kale haduu yaalo halkan column kale haduu yaalo soo xagaratay waxa dareemaysaa dhammaan mashruuc waa maxay asagoo dhan symmetry inuu yahay dhammaan distances-ka u wada dhaxeeya column iyo column kale tan inay waa maxay ay isku wada mid yihiin ay saas oo kale soo xagaratay ma inay isku wada mid ay saas oo kale u yihiin ay marka mashruuc مثلا hadii aan haysto mashruucan madrasad u sameeyay aan mashruucan dhammaan madrasooyinka waxaad arkaysaa waxa qolal isku wada sima soo xagaratay distance isku jirjira waa maxay in isku yani system gaar waa maxay loo sameeyay jira marka adaan waa maxay school oo kale taan design gareynayo waxyaalaha saas oo kale taa oo dhammaan waa maxay distances-kaygu ay yihiin shay symmetry oo kale taa barnaamijkan waa ku sawiran kara sidoo kale barnaamijkan waxa ku sawiraya waa maxay line waa maxay dheer yani waa maxay line horizontal ama line vertical bas soo xagaratay ma labadaas qaab bas buu ka saaciday oo maxaan ka wadaa aan مثلا hadii mashruuciga saan oo kale oo halkan مثلا balcon uu yaalo laakiin sorry haduu halkan balcon ii yaalo ama waa maxay truss saas kale ii yaalay maxaan sameynayaa hadii truss saan oo kale iigu yaalay waa maxay curve uu leeyahay saan oo kale yani qaybtan sare oo dhan waxa laga yaabaa in truss ay tahay waa maxay truss-tigana uu sameystay qaab curve مثلا kan kala truss kale ay yaal soo xagaratay ma truss kale to curve leh soo xagaratay ma truss kale to curve leh soo xagaratay ma mashruuciga saan oo kale waa maxay curve saas oo kale uu leeyahay soo xagaratay ma curves kan oo kale in aan sawiro way igu adkaanaysaa curves kan oo kale inaan ku sawiro barnaamijka eTabsiga way igu adkaanaysaa soo xagaratay ma marka markasta waxaan ka doorbidayaa in aan adeegsado barnaamijka AutoCAD-ka oo mashruucayga aan waa maxay أنا سأكسر عن سان كريستوان مركو ورث statistical system كسر سمستان لأنه هذه مشروعنا مثلا سان وسمستان حد أركز column لم يدينو سنجرين column لم يدينو سنجرين حد ريمي سوا محي إن column هالكان إيال column كله كهوسية سجى ما يالو صح كرت ميت كلا كان وامحي صورنا random نساس كله توياه لبا column وامحي سكولو لبا column كلفو يعني مركو دوتي مركي أن ربع إن أن اللهم استعان مشروع سانو كلتا أن سمعيه وامحي كلا تدوان سانو كلتا يعني مشروع سانو كلتا وكلا تدوان يعني column هالكان إيالو mid kale halkan ii yaalo soo xagaratay ma mid halkan geeska ii yaalo soo xagaratay ma hodhoti marka aan barnaamijka aan rabo inaan eTabsiga ku sawirto hadaan doonayo inaan barnaamijka eTabsiga statistical system ku samaysto dhammaan waa maxay waa inaan xadidaa waa maxay column kasta inuu axis haysto yani column kan kale axis ka soo haystaa walaay kan axis kan haystaa kan kale axis kan haystaa labadan axis kan haystaa mesela soo xagaratay ma mid kale haduu halkan yaalo oo kale wuxuu leeyahay axis kale tuu haystaa waxa dareemaysaa axis tira badan inaan isticmaalay sidoo kale tan axis kasta waa inaan cabbiraa waa maxay distance-ga u dhaxeeya axis-ka kaleeto okay midkan labada axis way isu jiraan mesela inaan dhahaa waa maxay 3 mitir labadan way isu jiraan mesela 6 mitir soo xagaratay ma yani waxa dareemaysaa shaqad ziyaada ah waa maxay time consuming ama waa maxay waqti badan iga dilaysa in aan qabanayaan marka sidaas darteed waxaan sameynayaa waa maxay eTabsiga ama barnaamijyadan CSI waxaan u adeegsanayaa bas in aan ku sameeyo analyze bas inaan ku samaysto bas analyze-ka inaan ku samaysto okay ana wax drawing ana u samaysan ama waa maxay drafting inaan ku samaysto drafting-ka inaan ka mamnuuco yani drafting-ka
in aan ka mamnuuco laakiin aan ku samaysto waa maxay in aan ku samaysto analysis okay analysis bas in aan ku samaysto hadda rabana aan waa maxay dadka qaar hadii مثلا koodka isticmaalaysa uu ku jiro waa maxay barnaamijka isticmaalaysa inaad waa maxay design aad ku samayso adoo koodka مثلا aad soo doorato koodka aad rabto inaad isticmaasho Brit code ama BS code ha ahaado ama ACI ha ahaado mid ku raba ha ahaado inaad waa maxay koodka inta doorato aad waa maxay aad design ku samayn karto isla waqtigiiba adigoo isticmaalaya barnaamijkan CSI marka pointigaas in aad fahantay ayaan isku filayaa insha Allah haduu Ilaahay idmo marka waxaan doonayaa waxa weeye inaan summary ku sameeyo waxa aan soo qabtay soo xagalatay inaan summary ku sameeyo waxaan sheegay waa maxay inaan maanta samaysan doono barnaamij la yiraahdo DXF inaan samaysan doono DXF kaas waa maxay waa file u dhaxeeya AutoCAD-ka iyo eTabsiga soo xagalatay malaano labadaanba laba shirkadooda kala duwan ayaa soo saaray sax marka waxaan doonayaa waa maxay wax u dhaxeeya waa maxay labadaba iga saacida in aan waa maxay la hadlo AutoCAD-ka sidoo kale tan la hadli kara eTabsiga in aan file noocaas oo kale aan samaysto waa maxay file-kayga aan DWG intaan ka bedelo aan u bedelo waa maxay DXF okay qaabka steps-ka aan marayana insha Allah waa idin sheegay waa kan steps-ki waa maxay dhamaan columns-ki aan waa maxay rectangle ku sawirto ina PMS-ki dhamaan waa maxay line ku sawirto sidoo kale tan slabs-ki inaan waa maxay polygon ku sawirto sidoo kale tan opening-ki inaan waa maxay rectangle taas kale ugu samaysto okay hadan hoos ugu soo degto waxa dareemaysaa waxa weeye inaan mid kasta aan waa maxay layer gaar ah aan AutoCAD gudihiisa aan ka samaysanayo aan kadibna ugu dambeynta aan ku save gareysanayo file-kayga qaab DXF aan meesha ka saarayo ama delete ku sameeyay statistical system-kii aan hore u haystay okay aniga waa maxay Allah musta'an badana mid kasta ku ciyaaray waa maxay xuduudda koodku ii qorayo in aan ku ciyaaro range-gaas okay sidoo kale tan CSI column waxa CSI company shirkadan waa maxay waxaan sheegnay inay dhowr barnaamij soo saarto barnaamijyadaas oo dhan waa maxay laba qaab in loo isticmaali karo maxay inaan drafting ku sameyn karo inaan structural analysis ku sameyn karo okay marka waxaan sheegay waa maxay sababta aan drafting aan ugu isticmaali laano sababta waa maxay in waa maxay waqti badan ay iga qaadanayso ay markaas aan door bidayo in aan barnaamij kale sida AutoCAD ku kale oo waa maxay more flexible ah inaan design-kayga ama statistical system-kayga intaan ku soo samaysto kadibna aan transfer ugu sameeyo eTabsiga si sahla aniga oo samaysanaya file-ka DXF-ka okay marka insha Allah waxaan dareemayaa in intaas ay waadax tahay haduu Ilaahay idmo insha Allah step-ka ku xiga waxaan gali doonaa aynu inaan barnaamijkeena AutoCAD-ka aynu saan waa maxay u soo furano kadibna aynu badbedelno waa maxay intii aan hadda soo sheegnay iyadoo practical aynu aragno laana marka hore waa maxay qurqadii qalin bay haysaa laakiin hadda insha Allah iyadoo practical inay waa maxay shaashada indhaheena aynu ku aragno qaabkan u sameyn doono sidoo kale tan aynu automatically ugu guurno barnaamijkii eTabsiga insha Allah aynu analyze-keeni aynu waa maxay halka ka bilowno insha Allah intaas aan ku soo koobayaan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh